filimkan ujeedadiisu waxay tahay inuu kaa siiyo macluumaad ku saabsan hababka kala duwan ee dhalmada loo xakameeyo lana heli karo si ay kaaga caawiso inaad qorshe u samayso uurkaaga iskana ilaalin lahayd xanuunada galmada ku faafa. waxaanu weydiinay qaar ka mid a dadka socday waddooyinka Nairobi ee dalka Kenya ku yaala waxay ka fahansan yihiin ka hortagga uurka ama dhalmo xakamaynta. waxaanu malaynayaa in qaadasho kiniin ama aalad la isticmaalo ay tahay hababka iyo tallaabooyinka dadku ay kaga hortagi karaan uurka. adiga laf ahaantaadu waad ka hortagi kartaa xanuunada qaarkood sida AIDS-ka iyo xanuunada galmada ku faafa. qofka waxaa laga yaabaa inuu qorshe leeyahay amase qorshe ka yeesho tirada carruurta ee uu rabo inuu ka koobnaado qoysku. maxay ahaayeen su'aalihii la xiriiray galmada dhowrsan ay ka hadashay qabiir dhakhtarada Suman? waa maxay xanuunada galmada ku faafa? xanuunada galmada ku faafa waa xanuun la isugu gudbiyo galmada. inta badan ma sheegi kartid haddii uu qof qabo xanuunada galmada ku faafa ama HIV, laakiin qaar ka mid a calaamadaha ay dadku isku arkaan waa isbeddel ku yimaada caadadooda, nabaro ka soo baxa cawrada dusheeda ama barar iyo nabaro ka soo baxa cawrada dhexdeeda ama xanuun aad dareento markaad kaadinayso. xanuunada galmada ku faafa badankooda waxaa si sahlan oo aan qaali ahayn lagu daweyn karaa adigoo si degdeg ah u booqda goob caafimaad. hase yeeshee dadka badankoodu ma fahansana arrintaasi, waxaanay xanuunkooda ku dhammaystaan aamusnaan muddo aad u dheer. habka ugu wanaagsan ee looga hortago xanuunada galmada ku faafa waa iyadoo la isticmaalo cinjir. haddii la dhala carruur ka hor da'da 17 waxay gelin kartaa haweeneyda khatar aad u weyn iyo in dhibaatooyin ka soo gaaraan uurka iyo ilmaha dhalista ama xitaa in ilmuhu dhinto ama ay haweeneydu dhalmada ku dhex dhimato. jirka haweenku waxa uu u baahan yahay waqti ay kaga ladnaan karaan ama ay kaga soo doogsadaan labadii uurba inta u dhexaysa, iyo sidoo kale haweenka leh in ka badan 4 carruur waxaa suurtagal ah inay la kulmaan dhabar furan ama dhiig ka yimaada iyo dhibaatooyin kale oo ku yimaada xilliga dhalmada ama xataa dhimasho. isticmaalka xakamaynta dhalmadu waxay ka hortagi kartaa dhibaatooyinka. mararka qaarkood dadku waxay ku warwaraan in haddii aqoon badan loo yeesho sida uurka looga hortago laga yaabo in dhiirigeliso in dadka ay galmo badan sameeyaan ama se ay guurka ka hor galmo sii sameeyaan. hase yeeshee waxaynu ognahay in isticmaalka cinjirkani uu ka caawinayo dadka inay sameeyaan si aan khatar lahayn kala doorasho taxadar leh. maxay ahaayeen su'aalihii kale ee ka hadashay Dr. Suman ee ku saabsan dhalmo xakamaynta iyo uurqaadista? go'aanka dhalmo xakamayntu ma ninka misna haweeneyda ayaa leh. ninkaygu ma rabo inuu isticmaalo kaniinka ka hortagga dhalmada. maxaan samayn karaa si aan isaga ilaaliyo inaan uur qaado? dhalmo xakamayntu miyay ma dhalaysiga dhigaysaa? dhalmo xakamayntu halis miyay ku noqon kartaa caafimaadkayga? ma dhabbaa in haddii aad kaadid kadib galmada inaanad uuraysanayn? indhasarcaadku ma joojini karaan inaad uur yeelato. runtii dhab maaha in indhasarcaad ama in la kaato galmada kadib inay ka hortegi karto uurka. si aan uga jawaabno su'aalaha kale waan u sharaxno sida galmo xakamayntu u shaqayso. Dr. Suman ayaa la kulantay koox dhalinyaro oo degan boqortooyada Ingiriiska. maanta waxaynu si guud uga hadli doonnaa waxyaalo ku saabsan dhalmo xakamaynta in loo isticmaalo macno ka hortag in uur la yeesho. sida laf ahaantaadu aad uga hortagi lahayd inaad ilmo dhasho. hase yeeshee waxaa wanaagsan inaad uga fikirto sida aad iskaga ilaalin lahayd xanuunada galmada ku faafa iyo cudurdhaliyaha xanuunka AIDS-ka, HIV iyo sidoo kale. waxaynu ka hadli doonnaa waxyaalo ku saabsan cinjirka, waayo runtii taasi waa habka keliya ee lamaanuhu ay isticmaali karaan labadooduba. waxaa muhiima inaad hubiso inaad hesho cinjirka cusub waqti kasta oo aad galmo samaynayso. waxay ka samaysan yihiin caag, waxaana la geliyaa xubinta taranka ragga oo taagan in yar ka hor intaanu qofku galmo samayn. sidaas daraaddeed waxaa halkaa ku arki kartaa inuu jiro qayb yar oo xoogaa dambe ah oo isku cadaadin kartid hawana aad ka saari kartid. sidaas daraaddeed waxaa arki doontaa in marka xubinta taranka ragga la geliyo run ahaantii waxay ka joojinaysaa inay minidu gasho xubinta taranka haweeneyda. run ahaantii marka minidu ay soo baxdo waxaa celiya cinjirka. miyaad isticmaashaa cinjirka dhammaan wakhtiga aad galmada samaynayso? taasi waa su'aal wanaagsan. waxaa run ahaantii muhiima inaad gashato ka hor intaanay galmadu bilaaban oo ku jiro waqtiga aad galmada samaynayso oo dhan. waxaana laga yaabaa inaad taqaan mararka qaarkood waxoogaa yar oo mini ah inay ka fakan karto xubintaada taranka run ahaantii intaanay dhicin minadu kaa iman ka hor. run ahaantii waxaa muhiima inaad marka galmada dhammaato ay tahay inaad iska saarto cinjirka si taxadar lehna aad isaga saarto meel dhowsoonna aad ku tuurto. markaas lagama yaabo inaad daadiso minida gudaha ku jirta. sidaas daraaddeed dhammaan dariiqooyinkan oo dhan ee looga hortegayo dhalmo xakamaynta si looga hortago uurka laakiin aan looga hortagin xanuunada galmada ku faafa ama HIV. hase yeeshee arrintu waxay tahay markaad isticmaalayso cinjirka iyo markaad joojinayso isticmaalkooda waxaad ku soo laabanaysaa inaad rimi kartid ama aad uur qaadi kartid mar labaad dhammaadka isticmaalka.
miyuu jiraa qof garanaya waxay tahay arrintani ma aalad ay haweenku uurka kaga hortagi karaan miya miyuu jiraa qof garanaya waxay tahay arrintani ma aalad ay haweenku uurka kaga hortagi karaanba waa hagaag miyaad doonaysaa inaad eegto sidaas daraaddeed waxaa gelin kara makaanka dhakhtar ama kalkaaliye caafimaad oo si gaar loo tababaray intaasi kadibna wuxuu fadhiisanayaa goobtii loogu talagalay inuu ilmaha yari ku kobco wuxuu salka dhigayaa isla goob la mid ah miyay damqaysaa jirkaaga inaad isticmaasho aaladdan makaanka la gelinayo aaladdan aad iyo aad ayay u badqabtaa waxaa isticmaala haween aad iyo aad u tiro badan oo kala jooga adduun weynaha hase yeeshee markuu kugu jiro looma baahna inaad ogaato inuu halkaasi ku jiro aaladdan waa qalab ay tahay inuu dhexgeliyo ilmagaleenka dhakhtar ama kalkaaliye caafimaad waa inaad dhexgelisaa gacantaada halka ka hoosayso dubka sidaas daraaddeed runtii halkaas ayay ku qarisay mana ogaan kartid inuu halkaa ku jiro waa sida xaasow ma arki kartid si yar oo fududna waad ku ilaawaysaa halkaasna wuxuu ku jiraa 3 sannadood waxaanu joojinayaa ugxansidayaasha sii daynta ugxanta sidaas daraaddeed uur qaadi maysid miyay jiraan wax ciladaha uu leeyahay gacantaada markaad dhex gelinayo aad iyo aad ayuu u sahlan yahay sidaas aaweed haweenka kuma keenayso dhibaatooyin caafimaad oo waqti dheer qaadata hase yeeshee haweenku waxay la kulmaan isbeddel ku yimaada caadadooda gebi ahaantiiba waa mid badqaba hase yeeshee haweenka qaarkood ma jecla habka labaad ee kan ku xiga waxaynu kaga hadli doonaa macluumaad ku saabsan turqida ama irbadda sida irbad kasta ee gacantaada la gelin karaa ama baridaada waxaanad u baahan tahay irbaddan 3 bilood ee kasta markaas ayay si fiican u shaqaynaysaa waxaanay sameeyaan si isku mid a noocyadan badan ee kala jaadjaadka oo kale kaasi oo joojinaya in ugxansidayaashu ay sii daayaan ugxanta taasi waa habka ugu muhiimsan ee ay u shaqeeyaan sidaas daraaddeed waxaynu hadda ka hadli doonaa macluumaad ku saabsan kaniinka haweenku badankoodu waxay ka heli karaan kaniinka haddii ay uga baahan yihiin goob caafimaad miyaad rabtaa inaad gacanta ku taabato oo aad eegto waxaa kaniin badan aad ku arki karta halka iyagoo bogis ku jira waayo waxay u baahan yihiin in maalin walba la qaato run ahaantii waxaa muhiima inaad xusuusato inaad u qaadato shaqada maalin walba si ay si habboon u shaqeeyaan sida ayuu kaniinku kaaga joojin karaa inaad uur yeelato mase leeyahay wax cilad ah kaniinku shaqadiisu waxay tahay inuu ka joojiyo in ugxansidayaasha sii daayaan beedka bil kasta dadka badankoodu wax cilada kalama kulmaan kaniinka dadkuna waxay wadaan sannado iyagoona wax dhibaatooyina kala kulmayn haba yaraatee waxaynu ka hadli doonaa macluumaad ku saabsan in uurka laga tilaalo si aanay u dhalin waa shay ragga iyo dumarkuba ay samayn karaan waxay kaa joojin kartaa in uur aad yeelato inta badan sidaas darteed waa hab loo isticmaali karo marka aad joojiso inaad caruur yeelato dhammaantood waxaanay ku xidhan tahay in qaliin yar aad samayso sidaas darteed waxaad u baahan doontaa inaad tagto goob caafimaad halkaasi oo lagugu diyaarin doono qaliin isla maalin gudaheeda waa arrin aad u adag in maqluubka loo rogo sidaas daraaddeed haddii aad go'aansato inaad yeelato in uurka lagaa talaalo si aanay u dhalin waxaa muhiima inaad fikirto wixii ku saabsan habkaasi oo ah inaad abidkaa carruur badan yeelan doonin dhammaan hababkan oo dhan lagama yaabo in lagu wada heli karo marka aad tegayso goobta caafimaadkaase yeeshee had iyo jeer waxaa jiri doona meel ay suurtagal tahay inaad ka hesho hababkan ma ninka mise haweenayda ayaa iskale go'aanka inuu ama inay isticmaasho dhalmaxakamaynta waa hagaag waxaan u malaynaa halka ayaa suurtagalka ka tahay in had iyo jeer ninku ama haweenaydu si wada jir ah go'aan ka gaari karaan waxyaalaha ku saabsan dhalmaxakamaynta waxaa laga yaabaa inaad kala sheekaysato saaxiibada si aad u raadiso sida laga yaabo inay isticmaalaan tusaalayaasha qaarkood ee aad kala sheekaysanayso sida labada lamaanaba ay u wada sheekaystaan si fiican ayaday u yaqaanaan sida cinjirka loogu isticmaalo xiriirkooda ama sida waxaanu jeedaa cinjirada hadda aad ayaa loo isticmaalaa had iyo jeerna waxaa jirta tusaalooyin ku saabsan dadka awoodi karayay in si guulah ay uga wada xaajoodaan arrinkaasi sidaas daraaddeed waxaynu hadda naqaanaa dhammaan hababka ku saabsan dhalmaxakamaynta lagaga hadlay sida looga hortago uurka qaadistaasi yeeshee cinjirka oo keliya ayaa ka hortegi kara xanuunada galmada ku faafa macluumaadkan wuxuu waxtar weyn u leeyahay haddii aad rabto inaad yarayso tirada carruurta ayaad rabto inaad dhasho iyo sidii aad iskaga ilaalin lahayd xanuunada galmada ku faafiya xanuun dhaliyaha aidiska HIV sidaas daraaddeed hadda waa waqtiga aynu bilaabi lahayn inaynu ka hadalno macluumaadka ku saabsan habka kuuga habboon ee aad uurka qaadista kaga hortegi lahayd anigu ma rabo inaan isticmaalo inaan sameeyo dhalmaxakamaynta waayo ilaa hadda ma joojin galmada noocyadee ayaa ka mid ah dhalmaxakamaynta waxaa jira kaniin la heli karo waxaa jira irbad la isku mudo waxaa jira cinjir oo ah kan ugu caansan waxaa jira aaladda makaanka lagu xidho si aanay u uuraysan ama waxaynu isticmaalnaa dhiibo brovera oo ah irbadda la isku mudo anigu markaan samaynayo waan ogahay inay khatar tahay waxaan isticmaalaa cinjirka aniga iyo saaxiibaday waannu isticmaalnaa kiniinka waxaana isku raacnay inaannu isticmaalno cinjirka waayo si aannu ugu hortagno inaannu carruur ka badan intaannu korin karno aannu yeelan karno haa sidaas weeye